shirkan jaraa'id ee uu xafiiskiisa ku qabtay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Sarreeye Guuto Odawa Yuusuf Raage ayaa waxa uu digniin u diray dad gaadiidkooda u ekeysiiya gaadiidka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaasi oo mararka qaar siyaabo qaldan u isticmaala. Maalmihii ugu dambeeyay waxaa jira gaadiid loo yaqaan gaadiidka tiknikada oo ay wataan shakhsiyaad gaar ah gaadiidka oo loo ekeysiiyay gaadiidka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama lagu buufiyay rinjiga ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed lagu yaqaano arinta ayada ah oo keeni karta qatar iyo qaladaad badan ku ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sababtoo ah waqtiyada qaar ay falal muxuu ahaa ii sheegay anshax darro ah ama dhaqan xumo ay sameynayaan taasoo muujinaysa in gaadiidka leeyahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed falalkaasuna ay geysteen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan rabaa marka inaan dadka noocaas aan ugu baaqo dhammaan cid allaale iyo cid isticmaalaysa gaadiidka tiknikada ah ee ku buufsan calaamadaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed lagu garanayo ee aan u diiwaan gashanay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed cid allaale cid haysata inay ka waantowdo arrinta noocaas ah hadii lagu arkana gaadiidkaas waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inay si buuxda ula wareegi doonaan mar hadii uu leeyahay calaamadihii lagu yaqaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ugu horeeyay rinjiga ciidanka. General Odawa ayaa ka hadlay dad aan ka mid ahayn ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku labista dareeska ciidanka xoogga dalka kuwa oo uu tilmaamay in sharciga ay la tiigsan doonaan. Waxaa jira ayagana shakhsiyaad ama dad isticmaalaya dareeska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaas oo aan u diiwaan gashanay ama aan ka tirsanayn ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed u shaqeeya hay'ado gaar ah shirkado gaar ah ama si meelo gaar ah ka shaqeeya. Arinta marka ayagana waxaan rabaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu leeyahay darees lagu yaqaano waxa isticmaali kara ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ma jirto hay'ad kale oo isticmaali karta ma jirto shakhsi kale oo isticmaali kara waxaan rabaa marka arinta ayadana cid allaale iyo cidda muxuu ahaa ii sheegay arrimaha noocaas ku kacda ee isticmaasha si sharci darro ah ku isticmaasha dareeska ciidanka aydan inaan la tiigsan doono sharciga muxuu ahaa talaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Sarreeye Guuto Odawa Yuusuf Raage ayaa sheegay in talaabo adag laga qaadi doono maleeshiyada isbaarooyin digta qaar ka mid ah degmooyinka iyo gobolada dalka. Waxaa jira maalmihii ugu dambeeyay meelaha qaar isbaarooyin ku soo koran oo ay ku howlan yihiin dad maleeshiyaad hubaysana oo aan ciidan ahayn waxaan rabaa aniga arrinta ayadana inaan ugu baaqo dadka arrimaha ku howlan ee dadka dhibaateynaya ee jidgooyooyinka u dhigaya ee isbaarooyinka u yaaliin ee lacagta baadda ah ee aan sharciga waafaqsanayn ka qaadaya dadka waxaan rabaa inaan ugu baaqo arrinta ayadana inay ka waantoobaan haddii arrimaha noocaas oo kala ah ay ku kacaanna ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada amniguba ay ka qaadi doonaan talaabo sharciga waafaqsan. Maxamed Muuse Maxamed idaacadda codka ciidamada qalabka sida